loo dilayaa waa qaab nidaam islaami ah loo marayo ama dowlad islaami ah ay fulinayso. Ogtahay in qofka muslimka ah uu dhiiggiisu leeyahay xurmo la rabo in la ilaaliyo. xadiiskan uu warinaya Cabdulaahi ibn Mascuud Ilaahay ka raali noqdee waxa uu yiri rasuulka Ilaahay laa yaxillu damu imri'in muslimin illa bi ihda thalathin الثيب الزاني النفس بالنفس التارك لدينه المفارق للجماعة. waxa uu yiri nabiga calayhi salaatu wasalaam ma bannaana in la daadiyo dhiigga qofka muslimka ah ama la banaysto ilaa uu sameeyo mid ka mid ah saddex oo sifaadkan uu ku sifoobo. thayibu zani waa qof sinaystay isagoo guur soo maray kuna caddaatay sinadaasi. kan labaad waa annafsu binnafsi naf goysay oo jartay oo weliba qatli camdi ah oo kas ah qofka isaga ah ku dishay kana dhiiggiisa waxaa lagu banaysanayaa si looga gudo xaqa qofka uu dilay. qodobka ugu dambeeya waxa weeye taariku lidiinihi qofka diintiisa ka baxay ee islaamnimada dib uga noqday gadaal markuu arkay macaanka islaamnimada qofka xidoobayna dhiiggiisu waa xadur ayuu noqonayaa oo waa bannaanaanaya. almufaariqu liljamaaca kaasoo jamaacada muslimiinta ku dhex baxay. sidaa darteed qaabka xadka looga oogayo oo loo dilayaa waa qaab waxa weeyaan nidaam islaami ah loo marayo ama dowlad islaami ah ay fulinayso. macnaheedu ma aha qof kasta inuu gacanta iskala gelayo. aad baa u mahadsantihiin.